بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة الانفطار مكية وآياتها 19. سورة عاو 10 كانوا كبلابنها يوحى ليرا مقعيدة سورة الانفطار أيا ليرا هذا، وانا مكي او وحي كمتهي سورة مكي او رسولك عليه الصلاة والسلام intausan ka soo tegin mako ku soo dagooday. suuradan waxay ka hadlaysaa oo waxyaabaha ay ka hadlaysa kamid ah gaalka ilaahay inkiray, qiyaamada inkiray, oo ilaahay ku gaaloobay, oo ilaahay u nicmeeyay, oo lagu amal sheegan hayo, loona cadayn hayo, loo sii digayo inuu ilaaha u inkirayo lala xisaabtami doono. suuradii aan ka soo baxnay oo la dhihi jiray suuratul mudaffifiin waxaan ku soo qaadanay musaabaqa inay ku jirto tanaafus baan rabaa oo khayrka loo tartamo. khayraadkii iyo nicmooyinkii markii laga soo sheekeeyey ayaa waxaa la soo yiri wa fi dhalika khayrkaas falyatanafasil mutanaafisuun. marka tanaafuska waan soo sheegnay waa khayrkoo lagu tartamo oo leesiraa qofkaas yow ka khayr badin, yow ka cilmi badin, yow kaa quraanka aqoon badin, yowsan kaa taqwo badin, yowsan kaa salaad badin. cilmiga aad ku dadaasho oo aad uga dayato dadka dadaalaya looga daydaa. maxaa yeelay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa xasada ilaa fi ithnayn, laba qofood maahane ka badan lama odhan karo hebel oo kale allow yaa iga dhiga. laba qofood kaliyaha la odhan karaa buu yidhi, oo la majeersan karaa oo la kaman karaa. labadaas qofood waa ruux ilaahay xoola siiyey, xoolihiisa wuxuu ku bixiyaa meesha ku habboon. masaakiinta ayuu ugu kaalmeeyaa, agoonta ayuu uga gargaaraa, masaajidda ayuu ka camiraa, muslimiinta ayuu ku caawiyaa, muslimiinta kuwii dhib haysto oo tabaalaysan ayuu wixii uu u qaba karo ku caawiyaa. sidoo kale masaalixda dhexdooda la dhigayo haddii uu dagaal xarbiya xataa dhex maro, xoolaha masaalixda iyo dabkaas lagu daminayo, oo dhiigga muslimka lagu joojinayo, oo dadka masaakiinta lagu kala celinayo dhibaataysan, oo dhibku hayo oo islaamka sharta lagu joojinayo xataa wixii lagu bixiyaahu waxay noqonayaan naftooda wixii loo adeegsado in dhibka muslimiinta looga joojiyo. khayraadkii bay soo galahayaan. marka qofka khayraadka xoolaha ku bixinaya oo kale yaa xoolaysiiyo anna xoola aan khayrka kula baxo oo aan sadaqaysto oo aan diinta ugu kaalmeeyo allow yaa isiiya inaad tiraahdo oo sidaas waxa weeye niyadda ugu qabato. nabigu waa fiicantahu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale qofka diinta leh inaad niyadda ku qabato, adigana yaa ku siiya khayrkii, yaa diintii ku fahamsiiya, oo aad markaas majeersato qofka ahludiinka oo diintiisa ku dhaqmaya oo wanaagsan, adigana yaa diinku baraa sidaasoo kale noqotid oo diintii ummaddii sii bartid, ood ummaddii sii wacdisid, ood ummaddii cilmiga u akhridid in la yidhaahdo taasna way fiican tahay. marka musaabaqada qofka khayrka ah oo khayrka la janto, khayrka la jeclaado, oo khayrka lagu tartamo la yidhaah hebel yow kaa badin way fiican tahay. laakiin waxaan soo sheegnay faan haddii looga jeedo oo aad ku faanayso ujeeddadaadu ay tahay cilmiga aad baranayso aad u niyeysato dadka inaad ugu faanto, oo aad dadka sufahada ugu faanto, oo aad waxa weeye ummadda kula muranto, ood adduunye ku soo hesho haddaad u niyeysato jannada udaygeeda xataa heli maysid. jannada carafteedana waxaa laga helaa 500 oo sano markaad u soo jidho ayaa carafteedu ku soo gaaraysa ayuu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam. naartana sidoo kaleeto urkeeda iyo qurunkeedu meel dheer ayuu kaa soo gaarayaa, oo naarta ayadana nafteedu karkeedu meel dheer buu kaa soo gaarayaa aad ku gubanayso. marka musaabaqadaas khayrka loo tartamo waa inaanan mar walba halmaamin oon khayrka ku dadaalno, oon diinta baranno ayaan isku boorinaynaa. casharkeenna caaw wuxuu ka hadlayaa suuraddan la yidhaha suuratul infidaar ayuu ka hadlayaa. bismi illaahi araxmaani araxiim. idaa waqtigii assamaa'u samadii infadarat ay dildillaacdo oo amarka ilaahay ay ku dildillaacdo sababteeda. wa idaa goortii alkawaakibu xidigaheena intasarad ay soo daataan. wa idaa goortii albixaaru
badihiina fujirad la isku furo oo la isku daro wa idaa goortii alqubuuru qabriyaalkiina bucthirad la fuuq bixiyo ama la faago calimad waxay ogaan doontaa nafsu naf walba maalinkaas maa shaygii qaddamad ay hormarisay iyo wamaa shaygii akharad ay dib marisay wixii ay macnaha hormarsatay ay ogaan doontaa oo khayr ama sharax iyo shaygii ay waxa weeye gadaal marisayo oo waxa weeye ay gadaal ayada laga dhaxlay nafteeda oo xumaata ah oo gadaal adduunyada ay ku reebatay yaa ayuhal insaanu insaankaanow maa maxaybaa qarraka kugu kediyey birabbika rabbigaaga alkariimi wanaagsan alladii rabbigaasoo khalaqaka ku abuuray fasawaaka ku simay facadalaka ku ekeeyey ama facadalakana waa la akhriyaa qirada abii camarka shid baa ku jira fii ayi suuratin suuratee ka ahoo maa shaa'a ilaahay ow doonana rakabaka iska kaa dul saaray kallaa reebtoone bal iskaba dhaafi tukadibuuna waxaad beeninaysaan gaalay biddiini yoomka amaalmarinta waad inkiraysaan wa inna calaykum korkiinnana waxaa ahaaday laxaafidiina malaa'ig xifdinaya waxaad ku hadashaan ficilka aad samaydaan iyo waxaad ku dhawaaqdaan malaa'ig idin qoraysa ayaa dushiinna saaran buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtaasoo kiraaman wan wanaagsan malaa'igtaasoo kaatibiina qoraya aqwaashiinna iyo acmaasha aad la timaadaan malaa'igtaasoo yaclamuuna og maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan inna al abraara dadka baariyaalka ah oo muuminiinta ah lafii naciimin jannada naciime la yidhaah dhexdeeday ahaadeen ilaahay ha nugu daro wa ina alfujaara dadka faajiriinta ah oo dulmilowyaalka ana dadka faajiriinta oo dulmiga badanna lafii jaxiimin naarta jaxiime la yidhaahdo dhexdeeday ahaadeen dadka faajiriinta ah oo ummadda dulminhaya oo ilaahay beeninhaya oo salaada ka tegahaya oo dhiigga islaameed bannaysanhaya oo ilaahayba waxa weeye iyo diintiisii dabamaraynaya jidkii rasuulka dabamaraynaya calayhi salaatu wasalaam faajir ilaahay ayaa amaal marinaya jaxiimowna ku amaal marinaya yaslownahaa naarta ayay gelayaan yowmaddiini amaalmarinta maalinkeeda wamaa hum ayaguna ma ahan canhaa naarta xaggeeda biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya ma ahan mar kasta naartaas bay ku jirayaan kamana maqnaanhayaan wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiin amaalmarinta maalinkeedu waxay tahay humma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiini amaalmarinta maalinkeedu waxay tahay yowma maalin weeye ama udkur xus yowma maalin xus waana la godaa yowmuna waa la akhriyaa yowmu laa tamliku qirada abii camarka yowma laa tamliku nafsun linafsina waa la akhriyaa tanwiin iyadoo qira'ana way jirtaa yowma maalin xus ama huwa yoomkaasi yowmu maalin weeye laa tamliku aysan hanan karin nafsu nafin linafsin naf kaleeto shay-an waxba uma hanan karta weeyaan naf wax u hanan kartaahi ma jirto oo qof wax ku tari kara lama arko wal amru amarkuna yowma idin maalinkaas qiyaamo lillaahi ilaahay buu u sugnaaday laa yunaasicuhu fii axadun wax kula murmi karaana ma jiraan maalinkaas bismillaahi araxmaani araxiim ida asamaa'u shaqad idaadu daa'iman waxay raacdaa ficil xagga naxwi ahaan marka assamaa'udu waa ficil maxduufa faacilkiisii weeye idaa waqtigii infadarat ay dildilaacdo assamaa'u samadii infadarat idaa waqtigii assamaa'u samadu infadarat ay dildilaacdo waa yoomka qiyaamada ay dhacayso samadaan baa jeexjeexmaysa xidigahan baa soo hoobanaya badahan biyaha qaybna waa macaan qaybna waa xaraar waxaad u malaysaa labada qayb oo qaybna dhanaanka ay tahay qaybna macaanka ay tahay baynkooda waxaa ahaaday waxa weeye teed baa ahaaday ilaahay baa caalimku ah laakiin adigu ma ogid marka badihii waa laysku furayaa hal bad ayaa laga dhigahayaa markaasaa kulayl haddana inta laga dhigaa naarta lagu sii daraa biyihiiyo kulul badihiioo dhan wax alla wixii qabri ku jirayna bannaankaa lasoo dhigayaa waa yoomka qiyaamo oo waxa weeye samaawaadkiioo dhan la dildilaaciyo oo xidigihii soo daataan oo badihiioo dhan laysku furo ee biyo kulul laga dhigo ee lagu daro biyaha kulul oo naarta lagu daro allah naga badbaadiye oo qubuurta wixii ku jiray oo dhan bannaanka lasoo dhigo qof walba wuxuu horay u sameeyey
iyo wuxuu gadaal marsaday ayuu maalinkaas ogaan doonaa maxaa yeelay waa lagu amaalmarinayaa haddi idaa waqtigii as-samaa'u samadii in fadarad ay dildilaacda buu ilaahay yidhi wa idaa goortii alkawaakibu xidigihiina intasarad ay soo hoobtaan oo soo daataan wa idaa goortii albixaaru badihii fujirad laysku furo hal bad laga wada dhigo ee kabacdi biyo kulul noqdaan ee lagu daro naarta wa idaa goortii alqubuuru qabriyaalkiina bucfirad la soo faago qabriga wixii ku jiray ayaa la gedinayaa markaasaa la soo faagayaa meydkii ku jiray bannaanka la soo dhigayaa maalinkaas oo intaasoo arrimood ay dhacaan ayay calimad ogaan doontaa naf walbaahi maa shaygii qaddamad ay hormarisay oo aakhiro waxay u hormarsatay oo dembi ah ama shar ah maalinkaasay ogaanaysaa wa akharad wixii ay gadaal marisay oo adduunyada ay uga soo tagatay oo dunuubah ama wanaagahoo ee adduunyada ku reebatayna waa ka daba imaanayaan maxaa yeele haddii xumaan lagaa dhaxlo ood ummadda xumaan iyo baadil iyo caqiida xun iyo qalad haddaad ummadda u reebto iyo ficilla xun ficilkii dadkii kaa dhaxlay ood ku tababartay dembigeedii baa kuu soconaya qofkii hadda qaabiil ayaa adduunyada ugu horreeyey qof bini aadam dhiiggiisa daadiya adduunka waxaa ugu horreeyuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qof bini aadamka xaqdarro dhiiggiisa ku daadiya qaabiil baa ugu horreeyey haabiil buu dilay adduunka waxa laysdilahayo oo gardarro laysku laynhayo oo qabiil laysku laynayo oo ujeeddo iyo kuraas iyo adduunyo laysku laynayo oo dulmiga muslimiinta iyo loo dilaya masaakiinta gardarradaas laysku baabi'inayo dunuubta ka imaanaysoo dhan qaabiil qayb buu ku leeyahay maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam li'annahu awalu man sanna alqatla wuxuu ahay qof dil gardarraa bilaaba bini aadamka kii ugu horreeyey ayuu ahay qaabiil sidaasuu marka u helayaa wax kasta oo dil ah oo dhaca dembiga ka yimaada nasiib buu ku helayaa wamaa akharad macnaheeda weeyi maa qaddamad wa akharad saas baa looga jeedaa waa ficilkii xun oo lagaa dhaxlay waxaad hormarsatana waa khayrkii aad horay u samayday ama sharahood adduunyada ku samaydayoo aakhirayba kaaga horreeyaan haddii ummaddii aad xumaato iyo ku tababartayna qoladii kugu dayata dembigii ka yimaad baad leedahay haddii dembi lagaaga daydo haddii wanaag ummadda aad u reebtana wanaaggaas waxa weeye lagaala haray baad leedahay masalan qof baa wuxuu reebay intaa wuxuu ahaa jiray qof dunuub iyo fisqi iyo heeso iyo fanaan buu ahaa xumaan buu ummaddii u reebay oo laga dhaxlay kelimaadkaas laga dhaxlay wixii ka yimaada inta adduunyada canjilkiisa la haysto oo wixii uu sameeye la haysto waxbuu ku leeyahay maxaa yeele xumaantii intaan ku raacayda hadalka uu ku dhawaaqa iyo waxa uu samaynayo oo shareecada khilaafsan qofkii ku raacda iyo kii bilaabayba waa leeyihiin haddaad ummaddii wanaag u reebto daraasaad akhriday qur-aan baad bartay culuum baad u akhriday waxaad u reebtay waxa weeye cilmi waxaad u reebtay qur-aan dadkii kugu raacay oo jidkaas wanaagsan ku dhaqma sawaabkii ka yimaada way ku soo gaarayaan adigoo aakhiro jira ayay kuu soconayaan sawaabkeedu sida nabiguba caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixu muslim ku sugan oo ku caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam man sanna sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila bihaa bacdahu fi lislaam laa yunqasu min ujuurihim shay-an buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wanaag ummadda qofkii u bilaaba asaga iyo intii ku dhaqanta jidkaas intii ku camal fasha wanaaggii uu sameeyey ajirkeedii buu helayaa marka macnaha meeshaanu sidaas weeyi yoomkaas oo samadii ay dildilaacdo oo xidigihii ay soo daataan oo badihii la isku furo oo qubuurta wixii ku jiray bannaanka la soo dhigo ayay calimad ogaanaysaa nafsu naf walbaahi maa qaddamad waxay hormarisay oo adduunka markay joogtay ay samayday oo wanaaga ama xumaana aakhiray ugu tegaysaa wa akharad wixii ay dabamarisay dabamarinta waxaa looga jeedaa waxay gadaal marsatayoo ayada laga dhaxlay oo ficil xuma ay ummadda ku tababartay ama waxa weeye wanaagahoo ummadda ay u reebtay weeyaan maalinkaas ayay heli doontaa naf walbaaba yaa ayuhal insaanu insaankaanow maa qarraka maxaa ku kediyey birabbika ilaahaaga alkariim
إلهك كريم محاكا كذي الذي إله سو خلقك كأومي فسواك كسمي أو حبنها إكيو تيمي فعدلك كسمي فعدلك اسكوكا معناها وحوي فعدلك فسواك كسمي وحوي أوجدك من العدم مد سمن بوكايا لحبن والبا وكو سمنته فعدلك هدنكو إكيو أبورستادي أبورس وناكسن أو اسكو ديلستران كردغا ويان في أي صورة كوهو ما شاء ماذا الزائدة ليرا أمصره في أي صورة كوهو شاء كدغانت ما شاء إلهي أو دونو ركبك اسككا دول ساري قابك واسقو دونو كو أبوري صورة ونكسن كو يالي محا إله اسكو كذي كذينتا وحا لوغا جيدا جدكيسا inaad ku kedsoonto oo aad ka leexato oo nicmadiisii waxa way aad ka shukri weydo maxaa kugu dhacay oo ku kediyaniyo waad kedsoontay waad qaldantay maxaa ku qalday oo ilaahay nicmadiisa waxa way quruurka kugu dhacay muxuu yahay bal iska ka reebtoon oo ka joogsee bal iska wadaafi tukadibuna waad beeninaysaan yoomka qiyaamo gaaladii baa lala hadlaya tukadibuna waad beeninaysaan bidiin yoomka amal marinta وإن عليكم كركيننا وحا أهاضي أما والحال باد بينينيسان عليكم دشينا يهاتي لحافظين ملائك حفظين يوحد سميدان ملائك تاسوكا كراما ووناكسن ملائك تاسو كاتبين قرية فعل كالله تمادان ملائك تاسو يعلمون ما تفعلون وحد سمينيسان إن الأبرار ضدك باريالك أو مؤمنين لفي النعيم jannada naciima la yiraahdo dhixdeeday ahaadeen wa innal fujaara dadka faajiriintaana la fi jahiim naarta jahiim la yiraahdo dhixdeeday ahaadeen yaslawnaha naartaas bay gelayaan yawmadiin amal marinta maalinkeeda naarta jahiim ay gelayaan faajiriinta dulmiga badan waxay gelayaan naarta jahiimo halkaas ayaa amal marin oo ah maadaaba adduunka ay ilaahay jidkiisa khilaafeen ilaahay diintiisa ay ku dheeleen إلهي أي قلافين صاصب اللغو أمال مريا وما هم أيقنا معهن عنها النار تحقيد بقائبين كوا كب مقنانا يأو كتغي معهنو نار تبي كتير هيان وقوار هيان كمنا مقنانا يان لحظة ساعد والبي كتير يان الله نقبت بادي وما أدراك محاكو أغيسيي ما يوم الدين أمال مرين تمارين كيدو وحيتهي ثم ما أدراك محاكو أغيسيي ما يوم الدين أمال مرين تمارين كيدو وحيتهي يوم مارين ويي مارين كاس لا تملكو أيسان أهنان كارين نف إلهي بينيدي لنفس نف كالي أو إلهي بينيدي شيئا وحبا أمهنان كارتو وح أي أهنان كارتو أو أي كبت بادي كارتو عذابت إلهي مجر دويان قف وحتر يماله قفك إلهي آن رومين وحلو ترك رمالهن رسولك عليه الصلاة والسلام أذيرك أبو اللهب نارتي بو كتره شفاعة الرسولك هلي ماي نبيقو حبا أما قبانيو محايا لهذا التوحيد كيبا لغواي قفك إلهي الرومين واي أو حرام يذنوب تي اسكبا نايستا أو صدا اسكو خاتو مايستا سواء إسلام مهين وح شفاعة أوليه إلا ما أركم متفقانا لغويه أما الروح مؤمن كأه أو وناكسن قيامة مركو يماده حتى النار بقواري مايو حتى حتى النار لقريو ذنوبتي أو قال الله ما يريويان ضدك عصاة المؤمنين كان إني شفاعة الرسول كهليان عليه الصلاة والسلام دينتي باتاس عضيانيس هذا وحا لقو الرمية قف كان توحيد لحين وأن كل من إسلام نمو وحلوها ننكرو ونار تلقبت بادكرو هبيراتين مجد دوي يوم مال وي قيامة الله تملكو أيسن هننكرين نفس النفي للنفس النفكالي شيئا وحبأ من ملكينيس والأمر أرنتو دمي ما ملكو دمي يومئذ مانكاس لله إلهي بو أهابي أمرك إلهي بما ملي سبحانه وتعالى هذا بالصورة دان هي صورة دي أنكسها مرة صورة الانشقاق هي صورة دان نوئما دونتو صورة التكوير سدح ذا صورة دوت waxay ka hadlaan qiyaamada oo maxdi ah qofkii raba inuu qiyaamada ogaado waxay dhihi jireen asxaabta rasuulku qofkii raba qiyaamada inuu ogaado oo qiyaamada ahwaasheeda si fiican ula socdo ha aqriyo haadihi suwara thalath saddexdan suuradood qiyaamada waxay uga hadlaan si aan caadi ahayn waa suurada hadda aan marayno
suurad hadda ka hor aan soo qaadanay suuratu linshiqaaq iyo midda noo imaan doonta insha allah suuratu takwiir oo casharkeena kale ah bismi illaahi araxmaani araxiim idaa waqtigii assamaa'u samadii infadarat ay dildilaacdo wa idaa goortii alkawaakibu xidigihii intafarad ay soo daataan wa idaa goortii albixaaru badihii fujirad laysku furo futixa bacduhaa ilaa bacdin midba mid loo furo fakhtalada cadbuhaa bimaalixihaa oo biyihii macaanay kuwii xaraaray lagu qaso wa asbaxat baxran waaxidan hal bad ay noqoto wa idaa goortii alqubuuru qabriyaalkii bucfirad la soo faago qubuurtii baa la soo faagayaa gudaha wixii ku jiray bannaankii baa lasoo dhigahayaa maalinkaas oo yowmulqiyaamo ah ayay calimad ogaan doontaa nafsun naf walbaahi maa shaygii qaddamad ay hormarisay oo aakhiro uga horreeyey oo khayr ah ama sharah oo adduunka ay ku samayday maalinkaasi ogaanaysaa oo lagu amaalmari doona wa akharat wixii ay gadaal marisayoo gadaalmarinta waxaa looga jeedaa laga dhaxlay waannaga hadda fasiraynay wixii laga dhaxlay qofna walaalayaal xumaan buu ka tegayaa adduunyada xumaan buu ka tegayaa dad baa hadda waxa weeye hadalladoodii iyo dadkii waxa weeye ficilladii ay sameeyeen iyo bulshada masaa'ibtii ay ku reebeen iyo canjaladihii ay duubeen oo fisqigii ay ummadda waxa weeye u reebeen ayaa bulsho kale oo cusub oo aan ayagii oqoon oon arkin jidkii ay ummadda u reebeen ay kusii lumayaan dad baa kusii lumaya dhaxalkii lagala haray oo dembiga ahay oo adduunyada ay ku reebeen dad kale oo ayagii aan ku qarni yahayn ka dhaxlaya way sii lumayaan waa ku sii hallaabayaan waa ku sii dulloobayaan qofkaas maxaa laga dhaxla walaalayaal ma qur'aan baa laga dhaxlay ma xadiis baa laga dhaxlay ma ammaan rasuul baa laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ma dikri ilaahay baa laga dhaxlay qofku markuu xumaan ummadda u reebo oo ficil xun ummaddu ay ka dhaxlaan kuna daydaan ficilkiisa inta lagu dayanaayo dembigii baa u soconaaya haddii shay wanaaga ummadda aad u reebto qur'aan baad bartay xadiis baad bartay hadal qur'aankiiyo duuban baad reebtay waa la akhrisaa sida canjaladaha qur'aanku hadda duuban oo kaleeto waa la dhegaystaa khayrkii aad ummadda u reebtay baa lagaa dhaxlayaa ajirkii baa kuu soconaya cilmigii baad ummaddii u akhriday caalimiinta adduunka ilaa wakhtigaa saxaabta ilaa wakhtigan waxa weeye diinta soo faafinayay khayr baa laga dhaxlay 1000 sano iyo agteeda dada aasan ajir baa u socda kama go'in ribaxoodii ma qasaarin wanaaggaa baa laga dhaxlay marka qofku maalinkaas wuxuu ogaanayaa shaygii uu hormariyey iyo shayguu gadaal mariyey shayguu gadaal mariyana waa ficilkii laga reebay oo ummaddu ay ka dhaxleen shayga uu hormariyana waa wixii hore u samaystay oo wanaaga ama xumaana kuwii khayr laga dhaxlo oo adduunka khayr uga taga oo ajirka oo u socdo markay geeriyoodan ka bacd ilaahay nagu daro ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuhal insaanu insaankaanow maa qarraka maxaa ku kediyey birabbika alkariim rabbigaaga wanaagga badan maxaa kugu kediyey oo kedinta waxaa looga jeedaa ayu shayin khadacaka birabbika alxaliimi alkariim ilaahay waxa weeye waa kuu nicmeey waa caafimaad buu ku siiyey wax walba ayuu kuu dhammaystiray xumaan baad marka samaynaysaa waad kedsoontay nicmadii ilaahay ayaad waxa weeye ku kedsoontay oo waxaad isku mooday shaydaan baa ku qalday shaydaan ayaa wuxuu kuu tusiyey jahligii doqonnimadii shaydaankii naftiibaa waxay kuu tusiyeen nicmadan inaa adugu aad la timidba marka rabbigaa waa waxa weeye nicmadiisii waad ku kedsoontay waa ku dagantay kama aadan shukri celin wejkii loogu talagalay ilaahay waxa weeye inaad ka shukrido ood ilaahay aad u qirto ayaa nicmada loogu talagalay inaad xigmadda ilaahay ku fahamto ugu talagalay marka maxaa taas kaa kediya weeyaan oo inaad ilaahay fahamto nicmadiisa ka shukri celido ilaahay xusuusato inuu nicmadan kuu galay maxaa kugu dhacood la fahmi laada insaanyo waa insaankii gaalka ahay ama ilaahay beeniye oo dhanba yaa ayuhal insaanu insaankaanow maa qarraka maxaa ku kediyey birabbika alkariim rabbigaaga kariimka ah inaad waxa weeye aad raacdo oo nicmadiisa aad rumaydo maxaa kaa kediyey waad ku kedsoontay ilaahay nicmadiisaad ku kedsoonta weeyaan waxaa kediye buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kediye buu yidhi waxa weeye jahligiis
asxaabtii waxay dheen waxa kadiye doqonnimadiisa iyo jahligiis sayid cumar wuxuu yiri waxa kadiye shaydaan baa ku qalday oo nicmada in aad u keensan karto ku tusi gaaladu nicmada ayagu ay sameynayaan waxay u haystaan waa ku kadsoomeen faajiriintu nicmooyinka ilaahay waa ku kadsoomeen markaasuu ilaahay qofkii uusan uga shukrinayn ilaahay u qirmaayo alladii allahas kariimka ho khalaqaka ku abuuray fasawaaka ku simay ilaahay waa ku abuuray qof walba gadaal ha iskugu laabto gaalkii naftiisa la hadlaa laakiin qof walba xuunku saaran yahay oo xuunku oo macnaha oo soo galaya ilaahaasoo ku abuuray oo fasawaaka ku simayo waa ku abuuray adoon jirin buu ku sameeyay xibnahaaga ayuu isku dheelistiray waxbaad ku maqashaa waxbaad ku garataa dhagabuu ku yeelay aqlibuu ku yeelay facadalaka haddana markii oo ku simay xibnahaagii xibna isku jimaysan weeyi waxa weeye sawaaka iyo facadalaka maxay yihiin waa ku simayo adiga muuqaalkaagii wuu siman yahay gacantii nafteedii xibin kasta gooni u fiiri way siman tahay abuuristeedu facadalakana waxa weeye adiga naftaad xibnahaagii haddana la isku jimeeyey maxaa yeelay gacantan labadaada gacmood hadday kala dheeraan lahaayeen ka waran hadday labada gacmood miduna ay halkaa joogto miduna ay gaaban tahay foolxumu qofku noqon lahay gacan kasta markii gooni loo fiiriyo way siman tahay laakiin haddaysan isla sinayn labadoodu haddana facadalaka ma imaateen markaa waxbaa kaa maqnaan lahay ilaahay haddana inta ku simay oo xibin walba xibinta kale kusii jaanjaray labadaadii indhood hadday miduna ay aad u weyn tahay miduna ay yar tahay il yar ay tahay foolxumay noqon lahaayeen il walba cabirkeedu waa siman yahay labadoodii haddana kala ma weyna waa la isla simay xibnahaagii ka waran haddii ilkahaagaanu sida timaha hadday u bixi lahaayeen timahaagu way baxaan bishiiba hal mar baa la jarayaa bishiiba markaad aad bil joogto way dheeraanayaan waxaad rabtaan iska soo gaabido waxaad leedahay timihii baa igu baxay cijiyihii baa kugu baxaya waa dheeraanayaan hadba waxaad leedahay cijiyaha waa inaad iska jaraabaad leedahay waa sunnaba hadde waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii ka waran ilkahaaguna iyo sunniyahaaga iyo faruuryahaagu hadday sida cijiyaha u bixi lahaayeen ka waran iyo sida timaha madaxa ku yaalloo kaleeto oo aad dhihi laheed war waxaan rabaa ilkihii way igu dheeraadeene wax ii simaan rabaa oo ilkaha ii jara waa lafo waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala meel baa la keenay waa la isku jaanjaray ilkuhu soo korin maayaan sunniyaha waxa weeye xaajibaynku ma soo korahayaan meeshoodii bay joogaan ahdaabtoo kale ma soo korahayaan meeshoodii bay joogaan faruuryahaagii meeshii bay joogaan xibnana waa xibno sidaas ilaahay ku abuuray meeshooda soo dhaafin maayaan waa min khalqillaahi bay ka mid yihiin min nicamillaahi bay ka mid yihiin waa inaad ilaahay uga shukrisaa subxaanahu wa tacaala 360 xibnood oo qof walba leeyahay yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam xibin walba waagu markuu bariyo inuu ka shukr celiyo oo ilaahay uga shukr celiyo oo sadaqa ka bixiyo oo xibintan wixii loogu talagalay oo ilaahay abuuray ugu talagalay inuu u isticmaalo ayaa waajib ku ah sidaas ayuu noo cadeeyay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista baan ku qaada doono marka ilaahaaso alladii khalaqaka ku abuuray fasawaaka ku simay facadalaka haddii la shido waa qiraa'atu abi camar facadalaka bitakfiifna waa qiraa'atu abi xafsa qiraa'atu xafsa weeye abi xafsa weeye facadalaka ku simay waa laba qiro macnaha la akhriyo oo quraanka labadaba sax loogu akhriyo weeye ku simo isku kaajimeeyay xibnahaaga haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka suurad wanaagsan baa lagu abuuray laqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim thumma radadnaahu asfala saafiliin thumma radadnaahu fi asfali saafiliin waa la abuuray insaankii waxa weeye suurad midda ugu toosan ayaa lagu abuuray laqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim thumma radadnaahu asfala saafiliin baan rabaa asfala saafiliin ayuu ilaahay kugu abuuray waxa weeye wuxuu marka hore kugu abuuray suurad aad u wanaagsan wuxuuna u celinayaa dadka hooseeya meesha u hoosayn badan thumma radadnaahu asfala saafiliin buu ilaahay yiri kuwa hooseeya meesha u hoosayda baan u celinaynaa marka suura wanaagsan baa ilaahay kugu abuuray haddana fi ayi suuratin suuratii ka ahoo
ما شاء ما داس وسائد شاء باد كبلابه معناها إلهي أو دونه ركبك اسكا دول ساري سورده اسغو دونه عدانكي مدوغي غابنانتي قروخدي بدناد ديرركي نين اما دمر اما قنصا وجرا انت بطو دونه إلهي كادغيا إلهي وحوي وما فعل الله فهو جميل إلهي وحو سمايه وحو من نقضان ولا عليا وحكستو إلهي سمايه وحا كمدا أركان الإيمانك أن تؤمن بالقدر إن قدرت إلهي يقضها إلهي رميضه أو ترى آمنا بالله إلهي وحو قدران رميصنه إلهي وحو قدران كوقنا صنه دمر هبو قدران فالحمد لله محان دمر النقضي معهن إلهي قضيه سميه ضوط كقبطاه ركض ضوء كادغي محان النقضي معهن وما فعل الله فهو الجميل آمنت بالله إله بان رمي dadka wanaagsan walaalayaal reer su'aal ma ahayn reer shakina ma ahayn reer muranna ma ahayn shayga khayrka iimaankoodu wuxuu gaaray xataa waxyaabaha ay ku doodaan oo ka shakiyaan oo ay waxa way ka sameeyaan waxyaabaha sidaas oo kale kuma aysan jirin shayaalaha waxa way laga munaaqashoodo kuma ay jirto waxyaabaha ilaahay qadaray ama xugmiyay inaad ka doodaba ma ahan ba taas kuma ay jirto weeyaan علومتا كلا إيه مسائشة كلا بحث جوده هلا قضاضه لكن أنا جت محارون نقضي ساسك كم قنع سني تنبأ معناها وحوي إلهي عدالة سمية وأنا لك حضي وحاصل المتران وحاصل المتران وحضر كيس أحكامت إلهي مركي لقش يواجبات إلهي ضررنا يا أنك الدين تنبأ النوع عدالة سمين وإيمان الآن ولا ليال وحيابها قار وحضر كيس أكوك أرنا يا مسائشة قار waqtigan jooga maba baasaydaba waqtigan jooga misaladaanu macnaha maba ku haboona waa la soo dhaafay waqti hore waxa la soo dhaafay oo waqtiyadii asxaabta ku haboonay war waxaas kale waa aqiido reer galbeed oo gaal diin la'aan weey misalada ilaahay soo dejiya waqti kasta ay la jaan qaadaysaa oo la socota madu qowdo quraanka waxa kamida markuu ka hadlayo nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam zaman kasto yimaado quraanku ma isbedelayo leeyahay rasuulkeenu kaleeyhi salaatu wasalaam في أي صورة ما شاء ركبك إلهي صورة وأصغو دونه إيا النوع دونه كو أبوري والنوع كو أبورو أيا كو وناك بدن وحضرك يسادد أول مدوبايو إسعادين أيام ما إلهي صورة دي ستكو قنع العادة سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة إلهي باسدان كو رنشيي يا رنشيك إلهي أو كمريي إيا كالركو كويا لياك وناك بدن فالحمو إيا واحد كقاضيسا عاقب حمو iyo murmurux aan faa'iido lahayn ayaad ka qaadaysaa hadaad suurad ilaahay bedel maagto nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam waxyaabaha oo lacnadi jiray waxa kamida al muqayyiratu li khalqillah dadka ilaahay suuradu ku abuuray bedelaya dadka ilaahay suuradu ku abuuray bedelaya waxa weeye nabigu ahadiisiisa lacnada markii la fiirsho inay ku jiraan bay u dhowdaaba dadka la lacnadayo qatarta ku jira inay soo galaan bay qatar ku tahay maxay yeelay dadka waxa weeye timahooda timal la xariiriyay dadka jirkooda duro oo daawada ku shubay dadka ilkohoodii oon cudur kala qabin ayagu qoraya sida dhaqanka gaalada kale ato sunniyaalkoodii kuwa qoro oo qaansaynayo kale ato waxyaabo badan oo sidaas oo kale ato ayaa waxa jira nabigu oo leeyahay kaleeyhi salaatu wasalaam oo lacnada xadiiska ku qoran wuxuuna dhamaantood cilad uga dhigay al muqayyiratu li khalqillah dadka ilaahay suurado ku abuuray bedelaya qatartoodii leeyihiin ilaahay sidoo ku abuuray isqurxin lagu diidana siinada wanaagsan iyo xaragadana lagu diidana laakiin kalarkood dhanba waa ku qanci waay sida gaalada jirkooda doorinaya aniga kalarkan mar rabo kalar kale aan baqaabanayaaba anigan mar rabo abuuristan oo ilaahay nin iga dhigay dumar inaan noqdaan barabaaba waxaad arkaysaa kuwa islaam sheeganayo sida dumarkii dhagadhago ugu helan yihiin dibadaha waxa lagu arkay ama islaamka wadamada waxa weeye islaamka sheeganaya waxa ka yimid oo dibadaha jooga oo islaamka sheeganaya oo sida dumarkii u samaysan wad la yaabaysa caalamka walaalayaal waxyaabo badan waxa jira shariicada ka hor imaada dhammaan waxa soo dhami waa diin la'aan waa in la isdaba qabtaa oo xadiista rasuulka la akhristaa oo ilaahay loo mahadnaqa oo suurada ilaahay oo kugu abuuray aatiraaf alxamdulilaahi rabbil caalamiin adduunyada wax yar baad ku leedahay maalmaha yarka oo ku leedahay ha iska halaynin ha iska wasaqaynin qalbiga ha iska miririn yaan musiiba kugu dhicin oo qabrigu mugdi kugu noqon
ilaahay suurada asagu oo doono ku abuuray taas alxamdulilah rabbil caalamiin ku iraah kalla kareeb ka joogse bal iskaba dhaafi tukadibuuna waad beeninaysaan bidiin yoomka qiyaamo wa inna calaykum laxaafidiin korkiinana waxa ahaaday malaa'ig baa ahaatay hadalkaa tidhaahdiin bay qorayaan malaa'igtaasoo kiraaman karaamaysan malaa'igtaasoo kaatibiina qoraya waxaad samaydaan oo ficil iyo qowl ah way qorayaan malaa'igtu raqiib munkar iyo waxaan rabaa raqiib iyo catiid ayaa garbaha saaran yaclamuuna waxay og yihiin malaa'igtu ma tafcaluuna waxaad samaydaan inna alabraara dadka waan wanaagsan buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala baariyaalka dadka la yidhaahdo baariyaalku waa mu'miniinta lafii naciimin jannada naciima la yidhaahdo dhexdeeday ahaadeen iftiin suruur aan la tilmaami karin ay ku raaxaysanayaan waxay haystaan baa la yidhi nicmo aan ilu arag dheguna maqal qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin jannadaa lagu waarinaya kama duqoobayaan ma xanuunsanayaan ma bawlayaan welwel la kulmi maayo way isjecel yihiin waxay u baahdaanna way haystaan wa ina alfujaara faajiriintuna lafii jaxiimin naarta jaxiima la yidha dhexdeeday ahaadeen faajiriintu yaslawnahaa naartaas bay gelayaan yowmaddiini amaalmarinta maalinkeeda wamaa hum ayagu ma ahaanin canhaa naarta xaggeeda biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya saacad kama maqnaanayaan laxdo kasta way ku jiraan weeye macnuhu wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiini amaalmarinta maalinkeedu waxay tahay uma maa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa yowmuddiini amaalmarinta maalinkeedu waxay tahay yowma maalinka sheekay ama huwa maalinkaasi yowmu maalin weeye laa tamliku aysan milkinayn oo u hananayn oon u qaba karin nafsu nafi dembowday ilaahay beenisay linnafsi naf kale oo ilaahay beenisay uma qaban karto shay-an wax ay u tari karto ma jirto weeye waalamru arrintoo dhami yowma-idin maalinkaas lilaahi ilaahay oo kale abay u sugnaatay waxa weeye asxaabtii rasuulka walaalayaal waxay ahaayeen kuwa qur-aanka markay akhrinayaan ku camal fala way ku tadabburi jireen cabsi iyo waano cabsi bay qur-aanka ilaahay waxa weeye uu dhaxal siin jiray qur-aanka ilaahay markay akhrinayaan kalaamka ilaahay cabsi ayay ka qaadi jireen nabigeena calayhi salaatu wasalaam habeenada ka mid ah sida xadiis imaamu nisaa'i ibnu maaja oo wariya uu caddaynayo salaatuleyl buu u istaagay aayaddan in tucadibhum fa innahum cibaaduka wa in takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim ayuu akhriyey oo suuratulmaa'ida ugu dambayda nabigu aayaddiiba ku celceliya baa la yidhi ilaa waagu ka beryo aayaddaas oo ku laalaabanay ilaahow addoommada nabi ciise hadalka yidhi ilaahow oo macnaha ilaahay uu ka sheekaynaya hadalkii nabi ciise weeye ilaahow addoommada haddaad cadaabto waa oon addoommadaadii haddaad u dembi dhaaftona adugu waxaa tahay mid oo casiis oo xakiima ilaahay u tahay aayaddaas waagu nabiga ugu beryo calayhi salaatu wasalaam saxaabiga la yidhaha tamiimudaari aayaddan buu akhriyey habeen isagoo salaad tukanaya am xasiba aladiina ijtaraxuu asayi'aati an najcalahum kaaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat am xasiba aladiina kuwiima waxay u malaynayaan ijtaraxuu gurteen asayi'aati xumaanyaalka an najcalahum inaan ka yeelayno kaaladiina aamanuu kuwii oo kale ilaahay rumeeyey wacamiluu asaalixaat macnaha dadka mu'miniinta ah dadka dembilayaalka ma waxay u maleeyaan inay mu'miniinta la mid noqonayaan waa maya aayaddaas uu akhriye baa la yidhi ilaa waagu ka beryo oo ku laalaabanay gabadha la yidhaha asmaa bintu abibakari sidiiq nin baa u soo galay baa la yidhi ayadoo akhrinaysa aayaddan famanna allaahu calaynaa wa waqaanaa cadaaba asamuum ay akhrinaysaa la yidhi famanna allaahu calaynaa ilaahay baa nicmo nagu galladaystay wa waqaanaa cadaaba asamuum cadaabtii oo jirka meesha xaadda uga taallo gelaysay oo ilaahay naga dhowra ilaahay naga ilaaliyo aayaddaasi akhriday asmaa bintu abibakar sidiiq caaisha walaasheed aayaddii nin saxaabiyaha nin baa meeshii soo maray baa la yidhi iyadoo akhrinaysa wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan wuxuu yidhi waa soo ag maray buu iyadoo akhrinaysa waa cubaada nin la yidhaahdo cubaada binu xamza way ku laalaabatay buu yidhi aayaddii ilaah bay tuugtaa buu yidhi famanna allaahu calaynaa wa waqaanaa cadaaba asamuum markay akhridaba ilaahay barida suuqaan aaduu yidhi waa soo laaftay aayaddii bay weli akhrinee buu yidhi
aayaddii bay akhrinaysaa caaishana sidaanoo kale aayaddan bay akhriday baa layidhi iyaduna maalin oo dhan ay ku laalaabanaysa oo iska oynaysa sidoo kaleeto saxaabiga la yidhaha cabdullaahi bin mascuud wuxuu akhriyey aayaddan waqul rabbi zidnii cilman ayuu akhriyey rabbi zidnii cilman oo macnaha oo ku laalaabtay baa layidhi ilaahu cilmi ii siyaad ilaahu cilmi ii badi ilaahu cilmi ii badi sidoo kaleeto taabiciga la yidhaha saciid binu jubayr wuxuu akhriyey aayaddan wattaquu yawman tarjicuuna fiihi ila allah iyo aayaddan fasawfa yaclamuuna idil aqlaalu fii acnaaqihim iyo aayaddan hadda suuraddan ku jirdho yaa ayuha alinsaanu maa qarraka birabbika alkariim wuu ku laalaabtaa aayadahaas wuu akhriyaa waa ku laalaabtaa waa ku tadabburaayeen waa ku oynayeen waa ku khushuucayeen waxay ahaayeen aayadda ay akhrinayaan macnaheeday fiirinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmi jiray aayadda u akhrinayaa hadday cadaab ka sheekaynayso nabigu inta iska ooyow ilaahay ka bari jiray cadaabta inuu ka badbaadiyo hadday aayaddu janno ka warramayso nabigu ilaahay buu su'aalo jiray calayhi salaatu wasalaam inuu jannadaas iyo raxmada uu siiyo annagana waxaa nala ka rabaa qur-aanka inaan ku cabsi qaadanno oo aayadaha cadaabta ka warramaya markii aan marayno ilaahay aan ka barino inuu cadaabta naga badbaadiyo ilaahay cadaabta naga badbaadiyo aayadaha jannada ka warramaya oo jannada ka sheekaynaa markaan maraynana waxaa la rabaa inaan ku tadabburno ilaahay aan jannada weydiisanno walaalayaal qur-aanku inuu cibro iyo tadabbur iyo tafakur inaan ka kororsanno oo aakhirada uu noo noqdo shafaaco inuu noo qaado ayaan ilaahay ka rajaynaynaa casharkeenna caaw intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu aclam bisawaab wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu